بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله بإذن الله muuqaalkeena maanta waxaynu ku darsi doonaa kuna practical garan doonaa sida loo sameeyo loona programmiyo calculatorka marka waxaynu isticmaali doonaa luqadda loo yaqaano C#.NET Framework marka ka hor intaynaan samayn waxaynu arki doonaa bal si uu shaqaynayo calculatorku waxaan rabaa tusaale hadda inaan laba tiro isu geeyo waxaan leeyahay 7 oo loo geeyey 7 oo kale waxaan ku dhufan doonaa equal marka waa inuu ii soo saaro marka wuxuu ii soo saaray 14 sax intaa markaan ka imaado waxaan rabaa inaan isku dhuftoo kale intii horaan iska tirtirayaa saan isaga tirtiro waxaan tegayaa sidaasaan ku dhufanayaa sidaasaan markaa ii clear garaynaysaa waxaan tegayaa marka waxaan leeyahay 8 oo lagu dhuftay 9 sidaa awgeed waxaan leeyahay equal baan leeyahay 27 waa ka ii soo saara waa iska tirtirayaa waxaan leeyahay 60 oo laga jaray 50 markaasaan waxaan leeyahay equal isagana waa kaa 10 ka ii soo saara iska tirtir waxaan leeyahay tusaale 80 loo qaybiyey 4 waxay kula mid noqonaysaa 20 kaasay kula mid noqonaysaa sidaa awgeed qaabkaas markaa uu isugu keen dhufanayaan isugu keen xisaabinaya way taa marka ka nimaadno waxaan leenahay tusaale sidoo kale wuxuu leeyahay marka aad rabtay inaad xal lambar qoratid intaas isa ka raado inaad mid mid aan dhamaatoodna wadan kalasan mid mid aad markaa aad u kansali kartid sidaa awgeed qaabkaas u shaqaynaya haddii aynu tirsiimo aynaan isu geyno waxa weeye nambaradan qornaa waa inuu inoo soo saara error marka errorka inoo soo saarden kuwaaba ku bilowno inay kulnayno error inoo soo saaray marka programkaas u shaqaynaya baan rabnaa aynu programino hadduu alla si aynu programino qaybta waa iska soo xidhaya waxaan tegayaa markaa Visual Studio ayaan ku dhufanayaa waxaad tegaysaa qaybta ay ku qoran tahay new waad ka dooranaysaa new project ayaad markaa aad dooranaysaa qaybtaasi waa inay ku doorantaa C#na waa inay kaaga sii doorantaa qaybta loo yaqaano Windows halkan named baan leenahay maadaama uu magacii containerku inoo noqonayo uu yahay waxaan leeyahay calculator ayaan siinayaa waa yahay calculator 3 ayaan leeyahay dadana waxaan ku dhufanayaa halka ay ku qoran tahay okay ay ku qoran tahay intaa markay sameyno waxay noo soo baxaysaa formkan default ahaan weeyaan defaultiga wuxuu leeyahay wax loo yaqaano qayb la yiraahdo size handling kanaan soo jiidaya access waxaan u leeyahay maxaa weeyaan inaan xaggan u badin karo xagganna aan u badin karo sidaa awgeed inagu waxaan rabnaa intaasoo kale ayaanu ka dhigan doonaa intaa markaan ka dhigan doonaa waxaan u baahannahay laba qaybood labada qaybood waxaan tegi doonaa qaybta toolboxka halkaa waxaan ka search garayn doonaa qaybta koowaad text box ayaan search garayn doonaa waa soo jiidayaa halkaas ayaan dhigan doonaa text box free transition maaha saan uga dhigto waxaan tegayaa qaybta multi ayaan tigta saaraya sidaa awgeed free transition buu noqonayaa markaasaan sidaasaan u badsanayaa intaasoo kale ayaan u deysanayaa qodobka labaad aan u baahannahay waxa weeyaan waa button text boxki baan tegayaa halkaas waxaan ku search garayn doonaa buttonka ayaan soo qaadi doonaa drop ayaan halkaa ku siin doonaa marka buttonkiina free transition buu leeyahay qaybtaasaan ku dhufanaya saasaan buttonkii aan waxa weeyaan u yar weynaysiisanayaa qaybtaasaan dhiganayaa xaggana tegaya xaggan waxaan ka dooranayaa font ayaad ka dooranaysaa property-ga haddana property ku soo bixinaya isagaad hadsinaysaa right click dadana property-gaas ayaad ka sii dooranaysaa font-iga ku soo saaraya qaybtaas hadda menu-ga ku sii dhufanaysaa bold baan leenahay ka dhig 12 ka dooro okay si marka isaga copy garee Ctrl+C Ctrl+V waayo isagaan dooranaynaa Ctrl+C iyo Ctrl+V baan leeyahay sidaa awgeed halkaasaan dhigayaa isagana hadana Ctrl+V baan leeyahay isagana halkaasaan dhigayaa hadana Ctrl+V baan siinayaa kana halkaasaan dhigayaa marka intaa qaybood afartaasaan xagga u deysanayaa afartaa ayaan copy garaynayaa waxaan leeyahay Ctrl+C ayaan leeyahay Ctrl+V ayaan hadana siinaya isagana halka ayaan dhigi doonaa Ctrl+C Ctrl+V baad haddana leedahay Ctrl+V baad haddana aad siinaysaa waxaan rabnaa markaa qaybtan waxaan ka dhigi doonaa waxaan ku qoran doonaa qaybta textkan tegin textka markaan tagno waxaan ku qoran doonaa qaybta waxaan siin doonaa C baan ku qoran doonaa qaybta ku xigtana waxaan kasii dooran doonaa CE baan tan kusoo qoran doonaa qaybta ku xigtana percentage ayaan qori doonaa marka qaybta ku sii xigtana waxaan leeyahay
loo qeybiyey. Way intaa markaa soo sameeyo waxaan leeyahay halkan aan iman doonaa waxaan leeyahay lambarka koobaad si kaana lambarka labaad si waxaan leeyahay kaana lambarka labaad si kaana lambarka saddexaad si kaana lambarka afraad si kaana lambarka shanaad ku qoran doonaa lixaad toddobaad sideedaad iyo kaasoo sagaalaad intaa markaan sameeyo halkan aanu iman doonaa waxaan leeyahay laga jaray waxaan ku qori doonaa calaamadii isku dhufashada waxaan leeyahay lagu dhuftay iyo qaybtan aan rabo inaan equal ula baxo equation qaybta waa iska saari doonaa equation ayaan waxa weeyaan weynaysiin doonaa oo aan expand ku samayn doonaa intaa markaan sameeyo qaybtan waxaan ula bixi doonaa lood baan leeyahay qaybtaana waxaan leeyahay zero sida awgeed qaabkaasu aan xogta ugu salaysan kaas waxaan usoo bixin doonaa markaa qaybta waxaan tegi doonaa namekeen tegi doonaa nameka markaan tagno qaybta nameka waxaan isticmaali doonaa camel case baan isticmaali doonaa maadaama uu identifier uu noqonayo sida awgeed waxaan leenahay btn xarafka qori waan yareynaynaa xarafka dhexdana waxaan leenahay clear baan ku qori doonaa kan tegi doonaa isagana waxaan ku qoran doonaa btn waxaan leenahay isagana backspace oo kale waayahay backspace aan hadda u kala garano sidoo kale waxaan tegi doonaa qaybtan isagana waxaan leenahay btn equal way intaa markaynu sameyno waxaan isku dayi doonaa inaynu dhammaantoodba ilaa iyo waxa loo yaqaano operatorska iyo waxa weeyaan tiradan decimalkaaba mar baan rabnaa inaan isku highlight garayno aynu hal button aynu wadaajino dhammaantoodba maadaama ay numeric iyagu isku noqonayaan intaa numerica oo laysu yidhaahdo oo dhan inaynu hal program iyo hal mar kood garayno aynan mid walba aynaan kood garayn marka intoo dhan waa soo highlight garaystay waxaan tegi doonaa qaybtan propertyga ayaan kasii dooran doonaa eventiga markaan kasii doonto qaybtaasaan ku dhufan doonaa click ay ku qoran tahay halkaasaan markaa magac ula bixi doonaa waxaan leeyahay uga bixi doonaa btn waxaan leeyahay bottom one oo kale bottom one inta baan leeyahay marka sidaa awgeed halkaa mar ayaynu programming ku sameynaynaa oo keliya halka kuwa kale ay ku kala duwan yihiin oo qaybtana gaarkeeda aynu eventiga ugu sameynayno kii horena waa kan kii labaadina waxa weeyaan waa kan oo magaciisii ayaa halka inooga soo baxay intaa marka ka nimaadna waxaan leenahay qaybtan aynu iman doonaa qaybtan waxaan u samayn doonaa qaybtii waan ku noqon doonaa propertyga waxaan ula soo bixi doonaa qaybtan weliba qaybta magaca waxaan ula soo bixi doonaa waxaan leenahay isagana maadaama uu output yahay txt baan leenahay waxaan siin doonaa output baan leenahay marka txt output intaasaa marka isagana siisanaya intaa markaan ka imaado waxaan u iman doonaa qaybta loo yaqaano formkan ayaad double click ka siinaysaa formka ayaan double click siinaynaa formka markaan double click siino waxaan soo samaysan doonaa wax loo yaqaano variable-kii ayaan define garayn doonaa marka qaybaha halkan ugu jira classada nooma baahni halkaas ayaan ku dhufan doonaa waxaan rabnaa variable inaynu samaysano variable-kaana waxaanu la bixi doonaa magacaynu marar badan aynu wax ka bedel ku sameyn marka waxaan leeyahay halkaa waxaad nooga samaysaa private markaad ka samaysid okay private baan ka samayn doonaa private markaan ka sameyno waxaan leenahay privatekaasi string haynoo ahaado string markaynu idhaahno variable-ku haynoo ahaado marka variable-ki baan halkaa ku dooran doonaa variable-ka waxaan ka dhigin doonaa currency calculation waayahay currency calculation waxaan leenahay equal maadaama uu variable yahay halkaana waxaan ka furan doonaa double quote waayahay semicolonta ayaan kusoo xiran doonaa oo waxa weeyaan statement-gu ku dhammaanay intaas waxaan soo samaystay marka variable-ka loo yaqaano calculation baan soo samaystay intaas markaan ka imaado waxaan u iman doonaa inaan programmadii si toosa aan u kood garayo waxaan ugu horeysiin doonaa programmada maadaama ay haddaan hadda hal mid ku dhufto iyo kan haddaan ku dhufto labadaba waxaa ii soo baxaya maadaama markii aynu soo midaynay oo isku wada mid tusaale 7kaas oo kale aan iskaga dhufanaya 7kan markaan ku dhufto waxaan programsanayaa markaa waxa loo yaqaano hadday xisaabin tahay iyo hadday nambaradii tahay waxaan soo qaadan doonaa variable-kii koowaad aan soo samaystay aan ula baxay currency calculation
currency calculation baan leeyahay waxaad igu dartaa lala mid noqotaa ood iigu geysaa ood waxa weeyaan halkaa aad igu dartaa waxa loo yaqaano sender ayaan ku qoran doonaa sender as bottom weeye sender as bottom baan siin doonaa sender as bottom ayaa halkaa ula bixi doonaa waxaana siin doonaa waxa loo yaqaano waxaan siin doonaa property baan siin doonaa propertygiisuna waxaan ka dhigi doonaa text baan ka dhigi doonaa wax kastaaba waxaan leenahay ama number ha ahaado ama waxa weeyaan qoraal ha ahaadee waxa weeyaan propertygu mar walba text ha kuu noqdo oo textkaasoo propertyga ayaan siin doonaa intaa markaan ka nimaadno semicolon ayaan ku xidhi doonaa inter baan leeyahay halkaa waxaan isticmaali doonaa oon soo saaran doonaa objectiga oo ahaa txt dan uba output inoo ahaa oo inooga soo baxaya text box uu yahay objectigaas aan soo qaadanaya marka objectigaas waxaan leeyahay isagana waxaad u samaysaa qayb loo yaqaano property u samee propertygiisa waxaad tirahdaa text ka dhig marka textkaas ayaynu leenahay waxaan leenahay taasi haynugu jirto qaybta loo yaqaano variable-ka ayaynu toos ugu yeeri doonaa semicolon-tina waana ku soo xidhan doonaa intaas waxa weeyaan hadda haddii aynu soo debug garayno access waxaan u leenahay in qoraalkii uu inoo qormo oo waxa weeyaan qoraalkii uu inoo soo baxo number walba aynu ku dhufano way sim haddaan ku dhufto waxaa isku qoraya markaa 7 baa isku qoraya laakiin ma tirtiri karo waxa weeyaan iskuma geyn karo waxa weeyaan qaybaha haddaan yiraahdo afar key aan yiraahdo equal ima programsa laakiin number iskun ba qoran kara intaa markaan ka imaado waxaynu iman doonaa inaynu buttonka ugu horeeyo oo tirtirida inaynu soo debug garayno buttonkaasaan double click baan ku dhufanayaa double click markaan ku dhufto waa btn clear halkaasaan markaa programmin doonaa waxaan u yeeli doonaa qaybtii loo yaqaano objectigii oo ahaa txt output.text markaan idhaahdo text waan siinayaa waxaa leeyahay kula mid noqdo balkood baan leeyahay statementigana waa kusoo dhaqanaya waayo marka meesha waxaa soo baxaysa wax maran baa soo baxaysa ama halkaa waxaa leeyahay waxaaba soo baxaysa zero ii soo saar marka mar walba lagu dhufto buttonkaasi zero waxa soo baxa output waxa noqdo zero hana currency calculation-kana waxa la isu geeyay haddii ay meesha ku jirto oo variable uu ku jiro isagana waxaad soo saartaa isagana zero soo saar marka halkaana waxaan ka tegey equation ka tegey marka isagana wuxuu inoo soo saari doonaa zero buu inoo soo saari doonaa okay intaa markaan idhaahdo haddii aan start ku dhufto aan soo debug gareeyo haddii aan qoro 7 aan idhaahdo sida taabto waxay isku bedelaysaa zero haddii aan tiro badan qorto aan c taabto zero bay isku bedelaysaa marka waa zerogan halkaa aan soo dhiga intaa markay ka nimaadno waxaanu iman doonaa buttonkii kale inaynu soo programino buttonka labaad waxaan leenahay buttonka inuu qoraalkii uu midmid uu u tirtiro qoraalkii markaan midmid uu u tirtirayo isaga waxaan isticmaali doonaa if baan isticmaali doonaa isaga condition baan ku xidhi doonaa waxaan furan doonaa qoys baan soo furan doonaa qoyska aan furanay waxaan ku xusi doonaa variable-kii markaan gashan doonaa currency calculation variable-kii markaan gashto waxaan isticmaali doonaa qayb loo yaqaano waayahay maadaama uu method yahay waxaan isticmaali doonaa method loo yaqaano langus loo yaqaanana waxaan leeyahay methodkaasi ka weynaado wax walba oo zero intaa markaan idhaahdo waxaan isticmaali doonaa calaamadii baan kusoo xidhi doonaa halkaasna waxaan leeyahay ka furi doonaa brace inter baan leeyahay inta markaas waxaan leeyahay currency calculation-kii ayaan qoran doonaa currency calculation markaan barto waxaan leeyahay currency calculation-ku ha kula mid noqoto waayahay currency calculation-ku ha kula mid noqoto waxa soo baxaya isla currency calculation-kii waaya intaa markaynu ka nimaadno waxaan leenahay waxaad igu samaysaa halkaa loo yaqaano method dot baan leeyahay methodkuna ha noqdo remove mid tirtira qaabka uu tirtirayaana ama wuxuu tirtirayaana waxa weeyaan waa variable-kii waa tiro kasta oo meesha lagu qoro ha tirtiro haddana waxaan samayn doonaa qaybta loo yaqaano methodka langus baan leeyahay languskaasina waxaan leeyahay -1 haddana waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay mid kastaaba ka dambeeya ha jaro midh ha u jaro baynu siinaynaa oo ku programinaynaa intaa markaan ka nimaadno waxaan iman doonaa qaybtan
halkaas bariiskaas ayaan intaad leeyahay halkaa waxaan ku qoran doonaa outputkii oo waxa weeyaan ii ahaa property waxaan leeyahay objectigii txt ayaan qoran doonaa waxaan leeyahay waayahay text ayaan leeyahay propertygiisa dot baa leeyahay text propertyga text baan siin doonaa waxaan leeyahay ha kula mid noqdo current calculation ayaa markaa semicolonki usoo xiray intaas waxaan leeyahay selfaan leeyahay waayahay waxaan iman doonaa kan ugu dambeeya oo buttonka equal double click baan siinaya oo isagana eventig waan samayn doonaa isaga waxaan samayn doonaa markaa aan halka xusi doonaa stream baan leeyahay waxaan soo samaynsan doonaa qayb loo yaqaano variableka waxaan leeyahay variableka waxaan u bixin doonaa formatting calculation formatting calculation markaan idhaahno waxaan leeyahay formatting calculation kaasi ha igu jirto ama hala mid noqoto current calculation halkaana waxaan samaysan doonaa wax loo yaqaano waxaan u yeelan doonaa to stream waxay ka dhigan tahay waxa weeyaan waa formatted stream weeyaan ama waxa weeyaan waa calling method wey waxay inoogu wacaysaa oo inoogu yeedhaysaa waxa loo yaqaano methodkii ayay inoogu yeedhaysaa waayahay intaa markaan ka nimaadno waxaynu ku xusi doonaa maadaama uu method yahay ama ay methodka ay nagu yeedhayso waxaynu ugu dambaysiin doonaa aan furi doonaa markaa qoys iskaas ayaan markaa waxaynu ku xiri doonaa inagoo isticmaalayna calaamadii semicolonka kusoo xiri doona maadaama statementgaas uu dhammaaday halkaas waxaan iman doonaa try baan leenahay try markaan siino waxaan furi doonaa briiskaasaan intar leeyahay halkaas waxaan leeyahay txt outputkii baan soo qaadan doonaa outputkii txt oo objectiga ahaa waxaan leeyahay propertygiisuna ha noqdo text marka uu yahay hayla mid noqdo inuu inoo sameeyo hayla mid noqdo new data table waayahay data table inoo sameeyo data tableka inoo sameynayaana waxaan leeyahay maadaama uu yahay method waxa weeye qoys baan furayaa qoyska aan furo waxaan leeyahay dot compute waxaad noo compute garaysaa ood kengeysaa ood inoo xisaabisaa waxa loo yaqaano formatting attributeska variableka loo yaqaano formatting calculation ayaan dhexdiisa dhigaya formatting calculationka markaa dhexdiisa dhigo waxaan leeyahay dot null baan siinayaa marka tana waxaan leeyahay waxaan soo xirayaa markaa qaybtii baan leeyahay tostring methodki ayaan u yeeri doonaa oo tostring oo calling methodki intaas markaa soo xiri doonaa equal baan usoo xiri halkaas buu error buu nagu haystaa waayahay calaamadaas ayaan siin doonaa dot baynu nidhi dotaasaa markaa error ku jira intaa markaan ka nimaadno waxaan leeyahay qaybtaa markaan ka nimi waxaan u iman doonaa qaybtan inter baan leeyahay inta markaan siiyo waxaan leeyahay current calculation oo attributekii variablekii markaan halkaa qorno waxaan leenahay variableka waxay noola mid noqdo outputkii oo waxa weeyaan objectigiina waxa weye propertygiisi ha yeesho column kusoo xiran waxaan leenahay haddana txt weliba current calculation waxay la mid noqoto markaa iyaduna meel mara waxay la mid noqon intaa markaan ka imaado waxaan isticmaali doonaa aan soo xiri doonaa qaybta way halkaan iman doonaa ama qaybtaasaan kasoo xiran doonaa halkaa waxaan ka bilaaban doonaa wax loo yaqaano catch baan halka ka furan doonaa catch markaa ka furto waxaan leeyahay qoys baan furan waxaan leeyahay wax loo yaqaano exceptionkana baan leeyahay egs halkaa markaan marayo baan brace baan furanayaa marka intaa baan leeyahay inta markaan idhaahdo waxaan ku xisi doonaa waxaan leeyahay txt outputkii baan qoran doonaa dot text propertygina markaan siiyo waxaan leeyahay
kuu soo saaro haddii aan waxa weeye tiradii ama la qorin waxa weeyaan calculationkii variable-kii haddii aan la qorin waxa weeye qaybta waxaad ka soo saartaa error ka soo saar waxaad soo saarta error soo saar ama waxa weeyaan xisaabaadka lagu bilaabo sida ku dhufashada lagu dhufto oo marka hore lagu kor bilaabo buu error ka soo saaray inta markayna la simo column ku xidhanaa xalaynta baan siinayaa inta markaas waxaan leeyahay currency calculation markaan dhaho waxaan leeyahay ha kula mid noqdo double code baan leeyahay sidaa awgeed waxa weeyaan isagana intaas ayaan ku programay marka isaguna hadhow wuxuu noo soo saari doonaa meesha maran buu noo soo saari doonaa safe baan leenahay marka okay halkaa wuxuu nagu haystaa error buu nagu haystaa halkaa waxa weeyaan qaar baa inagu dheeraada taas inagu dheeraa safe baan leeyahay start baan markaa ku dhufanaya start markaan ku dhufto hadda haddaan idhaahdo 7 loo geeyey 7 waxay error buu soo saaray maadaama aan lambarkii kale aanan qorin wey haddaan idhaahdo 7 oo loo geeyey 7 waxay la mid tahay marka 14 bay la mid noqonaysaa tirtir marka haddaan idhaahdo 2 oo lagu dhuftay 8 waxay ila mid tahay marka 16 bay kula mid noqonaysaa haddaan iska tirtiro aan tiro badan saa u qorto qaabkaas buu marka isaguna igu tirtiraya marka haddaan rabo tusaale qodobka ugu dambeeya 8 loo qaybiyey 2 qaabkaas isaguna 40 soo saaray marka qaabkaas loo programmiyo sidaasaana waxa weeye amarka loo bixiyaa insha Allah biidnillah inta practical gareeya salaam calaykum